hay-adda Camud Foundation ayaa deeq raashin gaarsiisay 100 qoys kuwaas oo ka mid ah dadka deegaanka Gosol oo hoos yimaada degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Deeqdan hay-addu gaarsiisay deegaankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Gosol iyo odayaasha deegaanka ayaa si wadajir uga mahadceliyay hay-adda Camud Foundation una duceeyay walaalaha iyaga noo yimid oo galabta noo yimid oo noogu yimid Gosol oo nagu soo booqday oo noo keenay deeqda raashinka aad baan ugu ducaynaynaa Ilaahay wax khayr badan inuu ugu bedelo. qodobka labaad ee hay'adda Camud Foundation oo noo timid galabtay ay noogu hortahay soo dhawaadaan leena walaalayaal soo dhawaada raashinkaan aan siiseen oo noogu deeqdeen oo afradana waa in kala wareegnay Ilaahay wax khayr badan inuu kugu bedelo oo 100 qoys afradood oo ah isugu jira haaf sonkora iyo haaf bura iyo cagad saliida iyo kiilo timira iyo daasad kiilo baalkaleeyada magaciisa way oo 100 qoys ay ugu tala galeen wixii aad noogu deeqdeen Ilaahay asa wajalla idinka abaal siiyo waana soo gaareen gacantaana ku haynaa waxaana soo gaaray haaf sonkora haaf bura caag saliida kiilo timira kiilo foostara intaas aad soo gaaray Allah idinka ajirsiyo. dhanka kale Cabdiraxmaan Biix Cabdi gudoomiyaha ururka Takaaful Puntland ayaa isna dhankiisa munaasabada deeqdan ka hadlay wuxuuna bogaadiyay hay'adda Camud Foundation isagoona sheegay in hay'adaha kale ay ka qayb qaataan si walaalahooda Soomaaliyeed ee biyuhu saameeyeen loo caawin lahaa. waxaan joognaa galabta deegaanka Gosol ee gobolka Mudug waxaanu soo gaarsiinay deeq afur loogu talagalay oo ay bixinayso hay'adda Camud Foundation uuna wakiil uga yahay oo fulinaya ururka Takaaful Puntland. deeqdaas waxaa loogu talagalay 100 qoys oo dadka Soomana oo reer Gosol Gosol sidaad ogtihiinba waa deegaan ay biyo waxyeello u geysteen intani waa ku yadhahay waa deegaan aad u ballaaran dad badan ay degan yihiin waxaan leenahay Camud iyo dhammaan hay'adaha kale oo dhan in ay u dadaalaan oo sidii hoy loogu dhisi lahaa dadkan loogu dadaalo annaguna waxaan soo gaarsiinay raashinka 100 qoys oo loogu talay afurka waxayna ka mid tahay waxyaalihii aanu deegaanada Puntland oo dhan fulinaynay 1 milyan oo ay bixinayeen oo dhammaan Soomaalida oo dhan loogu talagalay qayb ka mid ah weeyaan waxaan leenahay reer Camud iyo Takaaful oo fulinaysaba waa dadaasheen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajrigiina haydi siiyo dadkan waa dad Sooman una baahnaa waxay ku afuraan. ugu dambeyntiina Xaafid Cabdirasaaq Axmed oo hay'adii hore degmada Buurtinle ayaa sheegay hay'adda Camud Foundation inay ka jawaabtay baaqii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey uu ka diray deegaanka Gosol. galabta waxaan joognaa deegaanka Gosol ee degmada Xarfo ee gobolka Mudug baaqii uu diray halkan ka diray madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenku waxa ka soo jawaabtay hay'adda Camud Foundation iyo ururka Takaaful waa u mahadcelinaynaa waa deeqdii ugu horeysay oo timaada dad kale muxsiniinta ee wax la baxana waxaan leenahay dadkan walaalihiina biyihii u yimaadeen guryahoodii ka soo baxay waa inaan u naxdaan sida Camud Foundation iyo Takaaful oo kale waa in guryo loo dhiso waxaad arkaysaa hooyo ku dhashay maxaan ku rawaab ama aan deganayn waa dareemi ka dhan qof banaan jooga runtii waxay u baahan yihiin gargaar dhinac kasta ama caafimaadka ha ahaato ama guryo ha ahaato ama dhismo kale oo suuliyaalba ha ahaato waxaanu leenahay arintaas lala soo gaaro aan loo soo gurmado hana loo daqnado Camud Foundation iyo Takaafulna waa u mahadcelinaynaa. hay'adda Camud Foundation ayaa maalmihii u dambeeyay waxay raashin ka qaybinaysay gobolada Bari Karkaar Nugaal waana hay'adda kaliya ee walaalaha Soomaaliyeed ee Sooman u qaybiso afurinta ay ku afuraan waxayna u istaagtay hay'adda Camud Foundation si loo afurin lahaa in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle.